Waan islaam walaalayaal meel walba joogtiin kusoo dhawaada shaah. Een, een, masajid badan ayaan helay oo siiba haddana gaar ahaan private ah. Inta u badan dadku waxay leeyihiin ceebtaada qarsaniga waa la qarsadaa ceebta. Balse waxaad ka wadiin waan fahansanahay. Aad iyo aad u mahadsantiin walaalayaal meel walba joogtiin. Masajiina aad iyo aad ayaa magaceeda ii taawata. Run ahaantii intii clipan ugu horeysay aan soo dhigin kan waa kii saddexaad. Midka koowaad 2 beri ka hore intaanan soo dhigin ka hore 3 maalin ayaan guri isku qufulay. 3 maalin waxaan ku fikirayay sidii aan isku dili lahaa. Intaad aad jiifato magacaadii meesha lagu qabaysto gacmaha iska jirtaa. Sun ma cabtaa haddaad sun cabi lahayd. Sun ma cabtaa. Waxaan ku fikiray hataa filmaanta horey markaa daawadato sidii kuwa boqortooyinka dadka markii madaxooda intii lasoo dhigo madaxa raf laga dhigi jiray laga gooni jiray yaa sidaa camal madaxa iga gooya camal. Runtii 3 maalimood oo aad madow u ahayd ayay ahayd. Markaas sababahaas ay igu kaliftay in aniga aan hadlo. Dhibaatada aniga aan sheegto haddii loo barbar dhigo dhibaatooyinka ka taagan dunida taydii waxba kama aha. Dunida iska dhaaf Soomaali ahaan haddaan nahay dhibaatooyinka ina dhex yaalo haddii loo barbar dhigo mid ay hayso taydii waxba ma aha. Waan fahansanahay taa ayada. dad baa qutulyoonkooda maanta haysanin. Waan soo maray taa ayada yaraanteeda. Markaad aragto qof kamarada intuu soo hor fadhiista dhahayo odagayga saas oo xormi iyo badidooda dadku waxay leeyihiin muxuu ku hadlaya ninkan. Nin raga ilaahay ka dhig sidii ay badanaa aaminsan yihiin. Marka sababtan suicidalkan thoughtka fikirka aan ku fikirayay aan igu sheegayana waxay tahay commentiyo qaar waxaan arkay inuu xabad isku dhufo camal. Mise xabad baan kugu dhufan lahaa miya bis qoortaan kugu jiri lahaa iyo maalin walbaan ku duceystaa taa ayada anoo barbaraha marayo wadada anoo marayo qoorta ii gooya camal. Dadkan ii goodiyo har iyo haween ii goodiyaan aawe may iska kay toogtaan aan iska wadmada. Dunidan aan joogno wax baa loo noolaadaa. Haddii aad dhalinyaro tahay oo markaad soo kacayso waxaad u nooshahay inaad shaqo fiican hesho, inaad xaas yeelato, ilmo yeelato, ilmahaada wax barato, future-kaasaad u nooshahay. Haddii ay gabar tahay inuu ilaahay nin fiican ku siiyo, ilmo dhasho, ilmahaada u noolaato ayay badanaa qaab ahaan Soomaali haddaan nahay ayaan ka hadlayaa.
ayaan u noolnaa. Haddii aad waxbarasho ku jirto, waxbarashadaada inaad heer ka gaarto, shaqo fiican aad hesho, si aad wax iskugu qaban lahayd mise oo dadkaada wax ugu qaban lahayd ayaan u noolnaa. hadba motivationka wuxuu ahaadaba waxba anaga ina hogaaminayo oon anaga aan u noolnaa. aniga midda kalix igu hogaamin jirtay inta aan South Africa joogo waxay ahayd berito waan laabanayaa. beritadan maaha, in the future berita aan ka wada waan laabanayaa. exciting farxadda kalixa oon ku fikiri jiro mar walba niyadeeda ku jirtay waa ahayd markaan laabto waalidkayga wejigooda aragtida farxadooda ka muuqda iyo waxyaalahaas ayaan ku fikiri jiray oon ku riyooni jiray. haddii aan lacag dhigayo oon waxay ahaan jirtay ina ayaga aan u diro bisaba aan mustaqbalka laabashadeeda aan marka ayada aan u qorshoonayo ay ahaan jirta. balse markii taa ayada ay soo gabagabooday oo waad ka wada haysin kulligeen mar walba inaan kusoo celceliyona ma jecli inay maamada hooyaday dhahdo waad iga dhimata qabrigeygana ha soo istaagan. riyada ayada way iga dhimata. waxaa iga dhimatay riyadii aniga aan walaalihii ku arki lahaa 20 sano maana arkin. 20 sano wehelkii dhalay iyo kuwii ila dhasheen iyo kuwii sii dhaleenba ma arkin. kii dhashay maanta markaan kasoo tagay oo magaaladan ku dhashay ayaa 20 jira. makaariyadaas ayada aan qabi jiray inaan ayaga aan ku arko oo reunite one day aan ku wada kulano taasaa iga dhimata. waxaan isiri ade dunida maxaad ugu noosha haddii marba aadan rajo lahayn oo dream lahayn oo sabab aad ku noolaato aysan jirin, sabab ku hogaaminayso ood ku noolaatay aysan jirin, maxaad uga nooshahay dunida? horta qalad yaan la ii fahmin. aniga weli waxaan ahay dadka faraxsan hadba si loo yaqaano qaniisiin Soomaali haddii tahay waan ku faraxsana aniga ilaa maalinta aan qabriga galo oon ka dhimanayo waan ahaanayaa taa iyada wax iga bedelaysa ma laha. badidoodana waxaan aaminsanahay siba commentiyaha aan arkayo hal iyo laba miya comment aan arkay inuu inkaar ay tahay aniga waxay haysto. waxay ahaato calaa kulli xaal waxay ahaato waxaan hadda aniga aan go-aansaday inaan dilitaankii markaa aan isdili lahaa xagga aan iska dhigo. beri wixii soo kordhaya ma garana aniga. I don't know the future. balse aniga dib sida hadda aan taaganahay mise waxay haysto sidaan aniga iskaga bixin lahaa falankeeda ayaan hadda aan rabaa inaan ku gudub galo. run ahaantii markaan aniga aan youtube-kaan soo dhigay bulshada markaan soo dhigay waxaa jirtay inaan aniga ciyaari jiray oo qosli jiray. sababta igu kaliftana maanta aniga inaan daacad ahaado oon wax walba aan sheegtana waxay tahay dad badan aniga ila soo xiriiray dhalinyaro badan
een, oo leeyihiin niyow noloshaada camal haddaan heli lahayn dunidan way inoo dhacdaan lahayd camal. Een, marka inkastoo aniga aan maanta aan aad iyo aad uga fiicanahay inta Soomaaliya ku nool, inkastoo aan ka fiicanahay, balse haddana nolosha ayaga ay aaminsan yihiin oo aniga xagga muraayadda muraayadda horteeda intaan soo fadhiisto aan u qoslaayo oon aan ka dhigaayo meeshan aniga inay tahay Soomaali waxay aaminsan tahay meesha ugu fiican adduunyada inay xaj tahay. Taasoo horta qalad ay ila ahayd aniga inaan dadka aan ka dhaadhiciyo. Marka saas la adligeeda ayay igu kaliftay in aniga aan magacayada sidaan aniga aan nahay aan soo banaandhigo Soomaali haddana. Haddii aan Soomaali nahayna dhibkeena waan qarsanaa, waa runtaa ayada. Nin walbaba dhibaato haysata waana qarsanaa. Sababta aan qarsanayno waxay tahay qofka kale dhibkiisa ayaa intaan farta ku fiiqno har iyo haween ayaa miseba ku qosolnaa miseba aan ku faraxnaa. Anaka dib iskuma fiirino. Marka taasu inayn wax ka bedelo ayaan rabay qaasaan aniga aan iska bilaabo. Inta aan qof far ku fiiqi lahaa miseba aan caayi lahaa miseba aan judgment gareyn lahaa. Tan aniga haysata inaan ka hadlo ayaa ila habbooneed miseba ila habboon. Marka walaalayaal waan islaamiga ilaa iyo xilli dambe meel walba joogteen.